Wadayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada. Cabsi weyn ayaa haraysay in uu burburo heshiiskii u dhexeeya Mareykanka iyo weliba Iiraan. Shirqoollo halisa oo la maleegayo iyo weliba Israel oo ka shaqaysanaysa. Maxay tahay cabsida weyn ee taagan maxaase laga baqayaa? Waqti saacado yar ay ka harsan yihiin inay is arkaan wufuuddii Mareykanka iyo weliba kuwa Iiraan. Qodobadan iyo kuwo kale oo markaa xiiso badan oo ku saabsan hogaamiyaha dalkaas Iiraan Ayatollah Mujtaba Khamenei oo arrin lama filaan isagu soo bandhigay iyo weliba hogaamiyaasha ilaalada kacaanka saraakiishooda iyo weliba umuro kale oo ku saabsan madaxda dalkaasi ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa. Qodobadan iyo kuwo kale waxaan hor dhigi doonaa wariyaha seniorka Zahra Cabdi Axmed ahna madaxa TV-ga Somali Coverage TV. Zahra marka ugu horreysa soo dhawaad baad markaa ugu mahadsan tahay waqtiga qiimaha badan waxaan ku weydiinayaa hogaamiyaha dalkaasi Iiraan waa uu hadlay ninkii ahaa Ayatollah Mujtaba waxa uu iska fogeeyay mas'uuliyadda heshiiska. Maxay ahayd sababtaasi? Mujtaba Ayatollah Cali Khamenei waa uu hadlay sidaad sheegtay Cabdiqaadir waxa uuna fariin u diray dadka reer Iiraan. Fariintaasina waxa ay ku saleysan tahay in uu iska wareejiyay asagu iskana fogeeyay markaasi heshiiskii ay saxiixeen madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo midka Iiraan Mas'uud Pezeshkian. Waxa uu sheegay in heshiiskaasi wax walba uu yahay uu dusha u ridanayo mas'uuliyadeeda hogaamiyaha wadankaasi Iiraan ama madaxweynaha dalkaasi Mas'uud Pezeshkian. Arrintu kama dhigna in Iiraaniyiintu ay ku kala aragti duwan yihiin balse waxa ay daba socotaa asal sidan oo kaleeto heshiiskii 2015 madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama iyo dhex mari jiray markaasi dowladda Iiraan hogaamiyaheedii waqtigaasi oo wiilkan aabihiis ah Ayatollah Cali Khamenei waxa uu xilligaasi isaga riixay sidan oo kaleeto heshiiska markii la saxiixay Xasan Ruuxaani oo xilligaasi ahaa madaxweynihii dalkaasi Iiraan. Marka arrintani waa arrin soo jireen ah waxaynu ognahay intii heshiiskaasi dhiraandhirintiisa ay socotay in dhinacyada ay quseyso wadankaasi Iiraan ay ka hadlayeen haddii ay noqoto ilaalada kacaanka dalkaasi Iiraan saraakiisha ugu sarsareyso haddii ay noqoto maaragtay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Iiraan haddii ay noqoto afhayeenka dalkaasi Iiraan iyo xataa haddii ay noqoto dhinaca kaleeto markii la dhaho Mujtaba Khamenei laftirkiisa dhammaantoodba si isku mid ah ayay uga hadlayeen balse haatan sida diblomaasiyaddu malaha ay dhigayso madaxweyne ilaa madaxweyne ayaa saxiixay heshiiska. Waxaad ogtahay sidoo kaleeto in dalka Pakistan xataa oo iyadu duljoogto ka ahayd heshiiska dhinacyada islamarkaasina dhexdhexaadinaysa labada wadan waxa ayaguna u saxiixay dhankooda wasiirka koowaad ee wadankaasi ama ra'iisul wasaaraha wadankaasi Shahbaz Sharif. Marka dhinac markii loo eego waxa ay maraysaa arrintu arrin diplomatically heer oo maaragtay qaanadaha diblomaasiyadeed wadamada iskula hadlaan ku saleysan laakiinse kama dhigna in Iiraan arrintu ku kala aragti duwan tahay muddaba waa la hadalhayay. Haddana waxaa jiri doonto in maaragtay maanta oo saacado un ay ka dhiman tahay in dhinacyadu ay u dabaaldegi doonaan heshiiskaasi oo ay isugu imaan doonaan haddii Allaha wada la ogolaado dalka Switzerland. Waxaa la warinayaa cabsi xooggan inay jirto oo ku aadan saacadaha yar ee ka haray heshiiska in markaas inkastoo la saxiixay laakiin fool la isku arko in uu burburo sababo ku aadan Israel. Markaad eegtid warbaahintooda waxay leedahay dhaqdhaqaaq xooggan ayaa ka soconaya gudaha Mareykanka oo ay wadaan saraakiisha Israa'iiliyiinta aad kugu dhow weliba xildhibaanada jamhuuriga oo la rabo qorshaan in la fashiliyo. Sidoo kale gudaha Israa'iil lafsadeeda dhaqdhaqaaq ayaa ka socda. Waa sidee maxay warbaahintu ka leedahay xitaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa la sheegay inuu ka hadlay Mareykanka. Warkii ugu dambeeyay bal maxaa laga leeyahay? Cabdiqaadir waa sidaas aad sheegtay waxaa jirta in JD Vance madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka uu hadlay waxa uuna si furan oo warbaahinta asagoo la hadlaya ah shir jaraa'idna ku qabta aqalka cad uu sheegay in Israel golaheeda wasiirada ay dowladda Mareykanka u dulqaadan doonin weerarada ay ku sameynayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump gaar ahaan arrimaha heshiiskan. Waxaa kaleeto jirto in xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Israel ay soo badbadanaysay si gaar ah markii la eego
waayo waxaa jirtood og tahay maaragtay intii heshiiskan dowladda maraykanku ay dhiraandhirinaysay ama la waday dhanka iiraanna maaragtay ay soo dhoweynayso waxaa jirta in israa'iil ay diiday inay xabajoojin samayso lubnaan bay duqeynaysay keliya intaasi ma ahane israa'iil iyo trump waxay isku arkeen netanyahu arrinkaasi xiisadooda cirka isku sii sharartay haddaad og tahay shalayto intii uu ku sugnaa shirka G7 madaxweynaha dalka maraykanka mar ayuu xataa si weyn uu u canjilay maaragtay isheeg ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu asaga oo sheegay in maaragtay uu jiro hal wadan oo wuxuu yiraahday saas eragaas u isticmaala hal wadan oo kasoo horjeeda heshiiskan ayaa jiru yiraahda kaasna wuxuuna leeyahay please bambigray sir ha ka joojin inaad duqeymaha ku wadid wadankaasi Israa'iil Lubnaan aan raahda Iiraan annaguna waa ka didnuu leeyahay macnaha sida doqonnimadooda bal fiiri waxa ay ku fakarayaan marka waxaa cad in dagaalkii ay wada galeen maraykanka iyo israa'iil inaysan ku wada jirin oo lagu kala xarag furta ayaa cad waxaa kaleeto xiisaha u yeelaya arrinta waxay tahay in dagaalkii ay wada galeen labada wadan ay ku kala hareen oo hadda israa'iil weli ay leeda waa dagaalameynaa halka Trumpna uu leeyahay anagu ma dagaalamayna ee maaragtay nabadan qaadanayna oo xasilooni baan doonaynaa Strait Hormuz in la furaan raba ayuu leeyahay Trump durbaba maantadaas aan kula hadlayo waxaa jirta in ciidamada Navy-ga Mareykanka ay culeyska ka qaadeen dekedaha dalka Iran dhaqangal inuu noqdo heshiiskiis markii sidaasi loo saxiixaybo taasi oo muujinaysa in qodobada heshiiskan dhinacyadu inay dhiiri geliyaan ay ka go'an tahay marka arrinta ka sokow in maaragtay Israa'iil ay raadinayso inay sii xumeyso waxay u muuqataa hadda in dhinacyada kaleeta ay si rasmi u arkayaan Israa'iil dandaasigeeda waa gartay weli waxaa taagan arrinta dalka Lubnaan wararka soo baxaya waxay leeyihiin Mareykanku waxa uu isku dayayaa xitaa inuu la tacaamulo saraakiil ka tirsan ama gacansaar la leh Xisbullah oo maanta waxaa jirtay rag waaweyn in lagu soo rogay cunaqabateyn iyo xanibaado dhanka markaa Mareykanka kaga imanayay waxaana la sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Lubnaan inay lacago ay markaasi ka heleen Xisbullah waxaa ku jira siyaasiyiin caana sida qoyska reer Franjiirad rag ka mid ah waxaa ku jira rag ganacsata oo miisaan ku leh waxaa ku jira shirkado waaweyn maxay ka dhignaanaysaa rag Lubnaaniyiin ah oo gacan saar la leh in markan xanibaad lagu soo rogo saameyn intee leeg bayna u geysan kartaa Xisbullah tallaabadaasi Mareykanku u qaaday arrintan si markii loo eego cabdulqaadir waxaa laga yaabaa inay u tahay laabqaboojis dhinaca Israa'iil si markii loo eegana Israa'iil iyo Mareykanku way kala xarig furteen oo macno badan ma sameynayso waa la yaab sida tallaabadan waqti saacado un ay ka dhiman tahay heshiiskii Mareykanka iyo maaragtay Iran in Mareykanku tallaabadan ay qaadaan why now ayay Mareykanka wax badan isweydiiyaan markii wax ay dhacaan maxaa hadda kusoo beega waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah waayo dadkan horey usoo jireen horaa cunaqabateynta loo saari karay haddii Xisbullahi ay xiriir la leeyihiin oo la ogaaday ama baaritaano lagu ogaaday loogu saari karay marka dhinac way noqon kartaa in Israa'iil in la qancinayo u muuqato oo weli Mareykanku uu leeyahay dagaalkii ka dhanka ahaa Lubnaan weli wuu sii jiraa balse haddaad dhinac u eegtid markaad fiirsid dagaalkii bariga dhexe hal jiho unbuu weynankiisa iyo awoodiisa ahaa jihadina waxay u muuqataa hadda in laga soo quustay waxaa jira sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka dalkaas Iran lana yiraahdo Muhsin Ridai oo la taliye sarena u ah maaragtay hogaamiyaha dalkaasi Iran ilaalada kacaanka dalkaasi Iran saraakiishooda kamida kaasi oo sheegay jilbaha ayaan u dhignay ayuu leeyahay shaydaamadii waa sida uu hadalka u yiraahday marka Iran markaad aragtid hadda siday u hadlayso sida ayaga loo baryayo loo daba joogo heshiiska qodobada ku jira oo qaar badan oo kamid ahmiyad gaar ayaga u leh haday noqoto qodobka ku saleysan inaan hadda laga wada hadlayninba barnaamijkooda nuclearka haday noqoto dhaqaalaha loo ballan qaaday haday noqoto cunaqabateyntii laga qaaday oo dekedahooda aan mar dambe tala cunaqabateynin dagaal dambe inaan lagu soo qaadin waxyaabo fara badan oo ku jira meeshaas heshiiska MOU-ga ilaa iyo haatan u muuqan kara inuu ahmiyad gaara uu leeyahay dalka Iran marka isku soo wada duubo ahmiyadu waxay tahay
waqtigan raggan la saaray cunaqabatayntu waxay kusoo aadaysaa horta xilli aad iyo aad u adag muhiim ay u tahay xilligan wadaxaajoodyadii iyo dhinacyadii heshiiskoodii haddana ay la yaab noqotay sababta waqtigan keentay in dhinacyadu ay maaragtay soo saaraan cunaqabatayntan gaar ahaan dowladda maraykanka waxaa jira goor dhoweyd saraakiil ka tirsan maraykanka ama xitaa xildhibaano waaweyn oo miisaan ku leh marka laga hadlayo gudaha maraykanka waxaa ka mid ah senatorka dimuqraadiga Adam Schiff waxaa ka mid ah Chuck Schumer oo ka mid ah ragga sanadka miisaanka ku leh marka la eego hogaamiyaha dimuqraadigana lagu tilmaamo waxay leeyihiin aad baan uga soo horjeednaa tallaabada Iran lagu siinayo in ka badan 300 bilyan oo dollar aad bayna u weerarayaan heshiiska raggii dimuqraadiyiinta markii hore waxay iyagu dalbanayeen heshiiska in la joojiyo maantana waxay weerarayaan heshiiskii maxay Trump uga dhignaanaysaa tallaabada dabcan dimuqraadiyiintu waxa ay ka eegayaan waxay tahay in Iran dhaqaale xoogan la siiyay laakiinse waxa ay diidanayeen saad sheegtaba muddaba duqeymihii ku socda Iran ayagooba xataa aad moodidba in marka ay joogaan Congress-ka sida u lobbying gareynayeen aad u malaysid inay Iran ay maaragtay u hadlayaan marka waxay tani ka dhigan tahay dhinac markii laga eego maaragtay in ayagu mucaaradada ama waxa ay galaaska ay ku fiirinayaan siyaasadda Mareykanka iyo Donald Trump ay tahay oo kali ah in maaragtay ay ka hor yimaadaan wax walba oo Trump uu wado saas bay u dhignaan kartaa waayo hadda heshiiska la galay ayay taageeri lahaayeen dimuqraadiyiintu hadday u arkayaan ahmiyad wax u leh Iran ay ka fiirinayaan laakiinse waxay ka eegayaan markastaba Trump waxa uu sameynayo waa tallaabo qaldan sidaas la aligeedna waa in dadka laga qabtaa saas ayuu hadalkooda u dhacayaa dimuqraadiyiintu laakiinse si kastoo ay ahaataba waxaa jirto in heshiiskan ay taageerayaan marka la eego xubno fara badan oo dowladda Mareykanka ku jira oo labada aqalba ku jira Congress-ka hadday noqoto aqalka wakiilada iyo aqalka duqooda ee sanadkaba muddooyinkaana waday arrimaha sidii loo dhimi lahaa xiisadda bariga dhexe ama loo joojin lahaabo marka waxay ka dhigan tahay guul weyn oo u soo hoyatay sida haddii uu yahay uu ku hirgalo labada wadanba waa Mareykanka iyo Iran waqtiga hadda aan kula hadlayo waxaa jira hadal uu jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran Mohammad Baqir Ghalibaf kaasoo fariin isagu ka hadlay wuxuu sheegay fariinta hoggaanka ay jeediyeen saxiixa iyo isfahamka Mareykanka lala galay uu yahay bilowga wadda adag oo cusub isagoo adeegsaday kelmadda wadda adag oo cusub isla markaana uusan ahayn dhamaadka caqabadaha wuxuu sheegay xuquuqda shacabka Iran danaha xuduudda Tehran iyo weliba kooxaha wax iska caabinta Ghalibaf wuxuu ku eedeeyay dhinacyada ka soo horjeeda Iran inay hore u jibiyeen ballanqaadyadoodii wuxuu yidhi in lagu xadgudbo heshiiska xuquuqda Iran iyo hanjabaadda annagu digniin baan diraynaa buu yidhi haddii cadowga isku dayo Iran in lagu qasbo shuruudo dheeraad ah ama markaasi xad dhaaf ah Iran si degdeg ah ayay ugu jawaabi doontaa jawaab military ayaan samayn doonaa weli wuxuu yidhi ciidamadeenu waa diyaar keeblo yurar ayaan nahay buu isagu isticmaalay qoray fartayada iyo weliba keebka qoraygana waa isiistaan sida uu isagu leeyahay tallaabadan iyadoo heshiiska la seexay saacado kaliya heshiisku ka harsan yahay in xafladda la dhigo maxay ka dhignaanaysaa hanjabaadda Iran ka imanaysa waxaa laga yaabaa in ay ka war heleen hadallo ka imaanaya dowladda Mareykanka gudaheeda aad baa mukhaabaraadka waddanka Iran u sareeyaa ama waxaa laga yaabaa in dhinacyadu ku jira wadaxaajoodka ay weli hadallo uga soo noqonayaan oo ku wajahan maaragtay wadaxaajoodka iyo qodobada qaarkood maadaama Trump asna culaysyo fara badan oo gudaha uu dareemayo gaar ahaan lacagta 300 bilyan ee dollar ah ee la siinayo waddanka Iran waxaad moodaa Iiraaniyiintu in ay si weyn arrintan uga digayaan in dagaal uu qarxi karo in si weyn ay uga dhex arkayaan dhinacyada ee qusayso colaadda inaysan dhab ka ahayn dabcan waa suuragal waxa hadda lagu heshiiyey 14 qodob in wax ay Mareykanku ka bixi karo ama ay wax ka soo noqon karaan marka hadday wax ka soo noqdaan Iiraaniyiintu maxay tahay booska ay taagan yihiin waa sidaas sida ay u dhigayaan warkooda dabcan waadna arkaysaa in maaragtay sarkaal saro ka tirsan waddankaasi Iran uu hadlay oo ilaalada kacaanka ah tani waa mid kaleeto marka waxaa laga yaabaa Iran waxyaabo
ee isleedahay ma ku habboono heshiiska xilligan in ay arkayaan oo soo baxayo. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. taasi waxay ahayd wariyaha seniorka Zahra Cabdi Axmed oo khadka toos ugu jirta iyada oo ku sugan Virginia, Mareykanka, isla markaana si faahfaahsan oo qoto dheer nagu faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey weliba xiisadda Mareykanka iyo weliba Iiraan iyo heshiiska cabsida laga qabo inuu burburo Israa'iilna galaangalay u sameynayso wax walbana ay isugu dayeyso sidii ay u burburin lahayd heshiiskan. Zahra, aad baad u mahadsan tahay. adigaa mudan. daawadayaal intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waa dhammaantii isku duuban oo idinle nabadiino.